السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودنبالكيني لبيو تبناد دنبالدينا نفتهادنا حقله. دنبالكن وحانو بحيي دارين دعادادا. وانو قهي ويدك صوحب سامي هادي قرالي هذا وينسكي الشين إن هادي بهيدي إدمهيو إن دارين دعادادا تدبضني وحي كعبطان أما أي كعوضان إن أين دعادودا dareemayn markay ducaysanayaan inaanay ducadooda dareemaynin oo erayo ay qaybeen ay ku celcelinayaan. Su'aashu waxay tahay markaa sababta aynaan ducadeenna u dareemaynin waa maxay? Anigu xamd ahaan mar walba waxaan ku taliyaa in ruuxu markuu ducaysanayo luuqadda uu fahmayo ee ku ceelbixi karayo ee dareenkiisa iyo doonitaankiisa iyo baahidiisa ka turjumaysa in uu ku ducaysto. Inuu ku ducaysto. Ducooyinka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka soo arooray ee laga soo wariyay nicmo wa baraka alayhi afdal salaatu wa taam tasliim inaad micnahooda qaadato sidooda u taraaho labadaba. laakiin haddaad dareemaysid in aadan dareemaynin ducooyinka oo siday ahayd aanad ula falgelaynin oo meesha doonaysay inay kuwa xadantayaan aanay kuwa xadantaynaynin afkaaga ku ducayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa luuqadda iyo afkay ku hadlayno abuuray wakhtilaafi alsinatikum min aayaatihi bay ka mid tahay. saasay tahay ilaahay dareenka iyo doonitaanka iyo meeshuu qofku ka waxaweyaan deeliyayo ama ka dhitinayo iyo wuxuu ugu baahi badan yahay isagaa og. alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir. kolkaa su-aashu waxay tahay sidee baan ducadayda u dareema? intaynaan taa ka jawaabin waxaan isweydiinaynaa goormahayd markii ugu dambaysay ee aad naftaada u ogolaatay inay dareenkeeda dareento. maxaa laga wadaa dareenkeeda dareento? haddaad tirahay ma waxaa tahay dadka markay dareemayaan dareemo aan rajo iyo riyaaq iyo farxad iyo xamaasad ahayn ee kuwaalidigooda ah, markay wax diidan yihiin, markay cadhaysan yihiin, markay wax ka dirfayaan, markay wax allahuma salli calaa sayidina maxamed caajisaysan yihiin, dadka isha ka lalya ee jirdhiida ee iska qariya ee meel iskaga leexiya ee aan doonaynin inay dareemaan dareemada kuwooda uncomfortableka ayaan raaxada u abuurayn gudihiisa ku abuurayn. waa laga yaabaa in markaad dareen aan fiicnayn aad dareemaysid oo uncomfortable ah iska leexintooda aad iska leexisidiis ilowsiigaad ilowsiisidiis ku mashquulinta wax kale aad isku mashquulaysaa inay laxdada iyo daqiiqada markaa aad ismashquulinayso ay kuu fududayso in aad isir ilowsiisid. laakiin waxaad ogaataa in waxaanay baggage yahay oo aad biirsanaysid oo aanay tegaynin meel ay ku guntamayaan ay biirayaan. maantaad saa samaysay berri aad saa samaysay wiiga ku xiga wiiga kusii xiga bishii sanadkiinaan dabeecad baa kaaga samaysmayso. shakhsiyadaadii baa noqonaysa noocaas, qof cadhaysan, qof ay fartu gaadhayso, qof waxaweyaan dabeecadka kan, qof aan dadka la dhaqmi karin, qof isagu isku dhex daata markay dareemadiisa wax yar kasi noqdaan, qof because waxaad tahay qof diidaya qayb ka mid a ahaanshiyihiisa iyo nuxurka abuurkiisa. in dareemo riyaaq leh oo farxad leh oo rajo leh oo reynreyn leh oo xamaasad leh ayn dareennaa waa shay dabiiciya bani aadamtinimadeeda ka mid a. saas si leeg dareemo aanan wanaagsanayn, kuwo liidnimo ah, kuwo cadho ah, kuwo allahuma salli calaa sayidina maxamed raaxa dara ah, kuwo intaa lidigooda oo negative inaynu dareennaana waxay ka mid tahay nuxurka abuurkeena iyo bani aadamtinimadeena. kolka haddaad naftaada ka qaata xaqaydii ahayd inay dareemadeeda wada dareento waxaad noqonaysaa qof qaybi nooshahay baad noqonaysaa, qof laba wajiila ah baad noqonaysaa oo wuxuu gudaha ka dareemayo iyo wuxuu dabadda tusayaa ay laba kala yihiin. qof waxaad noqonaysaa kala qaybsanaan iyo baaxsanaani ay ku jirto. qof waxaad noqonaysaa ay fartu gaadho. qof waxay noqonaysaa ereyga iyo ficilka iyo dareenka iyo cabirku intuba ay ka khaldan yihiin oo ku qarxa cid aan ahayn ciddii ahayd inuu ku qarxo. yidhaaha erey aan ahayn
eraygii ay ahayd inuu afkiisa ka soo baxo kula dhaca cadhada cid aan iyadu waxba u geysan emotional explosion qof qarxaya dareen ahaan baad noqonaysa ama isku mashquul baan ahay waqti uma hayna nafteeda la fadhiisto maxaa nafta lagala fadhiisanayaa maxaa laisku mashquulinayaa maxaa laisku wareerinayaa wax weyn maaha waa iska caadi waa iska dabiici iswareeris sida doonto magaca doonto u bixi dareenka aad ku diidan tahay inaad la dhaqanto gudahaaga laakiin waxaad ogaataa waa mid dibkaaga taalla inaan nuglaada ma doonayo inaan qof jilicsan noqdo ma doonayo inaan iskuma mashquulinayo inuu naftaada la fadhiisayo waxaas waa maxay mana maqaaxida iska tago koob shaaha iska saacaba waxa weeyaan markay hawri dhacdo ama aan wax yar diido ama aan maaragtay gudahayga raad aan wanaagsanayn aan ku arko tvga iska daawo filin iska daawo saxaabtaada iska raac iska soo yarcashe markaad hadhow soo noqoto halkan bay kugu sugayaan dareemadii haddaanad la dhiil garaynin dareemadaada kuwooda kakan ee negativeka unad naftaada la fadhiisan unad odhan maxaa gudahayga ka siya maxaan dareemayaa waxaad ogaataa in aad jidh ahaan iyo ruuxiyan iimaaniyan nafsiyan caafimaad ahaan intaba in aad u kala dhinmaysid waa dhowtoole aad raadkooda arki doontid xilli aanad waxa weeyaan u daacad haynin maxay muhiim u tahay inaynu dareemadeenna dareenno ka hor intaynaan ducadeedna dareemin inaynu dareemadeenna dareenno oo nafteenna aynu la fadhiisanno oo isweydiinno waxa aynu markaa diidayno waxaynu ka dhirfayno waxaynu ka dhigdhiyeyno waxaynaan ka helin waxay ka dhigan tahay caafimaad qabka gudaheenna iyo dabadeenna labadaba ka hor haddaad cunto cuntadiiba soo qaatay waad cuntay ilkahaagii carabkaagii bay soo celceliyeen gurigii bay sii martay waxa weeyaan cunto mareenkii bay sii martay calooshaadii bay tagtay calooshii markay tagtay hadday calooshi tiro inagada halkaa ha ku jirtay maxaa dhacaya cillad kasta iyo musiibo kasta calooshaadii bay ka dhalanaysa calooshaadii ayay ka dhalanaysaa markaasaa calool istaag dhibaato gastrican keerkan kale autoimmune diseases boqol waxbaa kugu dhici dhakhtarunbaad kadaba ka wareegi ilaa hadhow toole la samax allah tumors iyo hawlo iyo ay gasho xaaladaada ilaahay subxaana watacaala qaabku bani aadamka uu abuuray systemkiisa uu abuuray waxweeyaan wax waliba process bay galaan sida ay cuntadu processka u galayso calooshaada markay gasho dhicaamadii loogu soo diinayo loo shiidayo duxdii iyo faa'iidadii lagula harayo wixii qashin saarana qashinkii waxweeyaan wixii qashinana qashin saarka looga saarayo karabakumullah sidaas leeg ayay tahay ruuxu intuu bani aadamka ahi intuu naftiisa la fadhiisto inuu dareemadiisa kuwooda raaxada le iyo kuwaan raaxada lahayn aan comfortableka labadaba inuu process gareeyo isweydiiyo murugtiisa la fadhiisto baahidiisa la fadhiisto doonitaankiisa la fadhiisto diiditaankiisa la fadhiisto wixii dhibaya la fadhiisto isweydiiyo kan kabuubyo iskuma ridi kartid dareenkaaga kabuubyo kuma ridi kartid isma iloosin kartid iskuma fadhiisan kartid isma caburin kartid hadday xataa u muuqato xilligaa inaad iska adkaatay oo waa iska dhiwey baatahay ama gabadh wey baatahay waxaweyaan reer baa waxay dhahan kor uga bax haddaad istiraahid dib unbay kuu soo celinayaan hadhow dib ayay kuu soo celinayaan dib baa dareenkaagu kaaga daba imanaya dib buu dabeecadaada ka qalafinayaa dib buu saamayn taban kaga yeelanayaa waxaa la yidhaaho dabeecadahaaga iyo xidhiidhadaada iyo naf aragaaga iyo kalsoonidaada iyo caashiyahaago dhan kolkaa dareemadeenna oo aynu dareenno emotionskeenna oo aynu dareennaa nafteenna caafimaad bay u leeyihiin iimaankeenna caafimaad bay u leeyihiin xidhiidhkeennu nafteenna leedahay caafimaad bay la leeyihiin ilaahayna la hadalkiisa subxaanahu watacaala ayay xoojinayaan oo bilayaan oo qurxinayaan oo cabirida aynu cabirayno dareenkeenna ayaa fududaanaya oo ducadeenna ballaadhanaysa oo inakoo dhan baa nicam iyo barako waxa weeyaan dhexma quulanayna su-aasha waxay tahay markaa sideen dareenkayga u dareema waynu imanayna sideen ducadeyda u dareema dareenkaaga waxaad u dareemi karaysaa kow in aad horta naftaada daacadno dhibaato ma xalin kartid xaalad ma fahmi kartid adoo la fadhiista mooyaane adoo su-aala iska weydiiya mooyaane naftaada inaad daacad u noqotid maxaan dareemayaa miyaan gaajaysanahayo iminka waxa muudkaygu leer khaldaya inaan xoogaa
laba midho laxooxa soo cuno dabadeetan markaas be good qof baa hadal igu yidhi ma ficil baa siya ma hormoneskaygaa khaldan ma what's going on maxaa jira maxaan uncomfortable u dareemaya maxaa soo kordhay hadal baan diiday waxbaan maqlan diiday ma allahumma salli calaa sayidina Muhammad wadadayda khalal ku jiraa ma ilmahayga wuxuu igu yidhi ma ninkayga wuxuu igu yidhi maxaaskayga waxay igu tiri ma jaarkaygan wax ka diidanahay ma wuxuusankaygu diidaa ii soo uray ma wax dhegtaydu diidaan maqlay ma wax bandhadhamiyey khalal igu riday gudahayga ma waxbaan akhriyey ma xaalad iyo arin aan daawanayay baan dhex galayo waxweeyaan dhibaato aanan lahayn baan dhex muquurtay deetana dhibana noqday what's going on gudahayga maxaa ka jira jawaab baad helaysaa marka jawaab ayaad helaysaa maxaan diidaya maxaan doonaya markaad tiraa talaabada labaad baan u imanaynaa markaa talaabada labaad waxa weeyaan wixii markay naftaadi kaaga jawaabto waxba jawaab bay ku siinaysaa markay naftaadi kaaga jawaabto cabir gudahaagii ka cabir anigu imika waxaan dareemayaa cabur baan dareemayaa tusaale ahaan maxaan la cabiraa ma hadal baan qarsanaya ayoon ku cabiro hargabaabay soo hayo talo xaalad ba waxba xagga gudahayga kama jiraan waxbaan diiday ma eray ahayd inaan idhaaho tusaale ahaan adoo cadhaysanaad rayd waan cadhaysanahay amba waxaasan diidanahay baan been ka sheegay naftaydiyo waxaan idhi waan iska faraxsanahay waa caadiya waxba jiraan express yourself marka naftaadi bal cabir waxay dareemayso baahi baad dareemaysaa maceebaal baad dareemaysaa maxaad diidaysaa maxaad doonaysaa maxaa jira eray ilaahay af buu ku siiyey bal adigu naftaadii afkaagii iyo ereygaagii xaqeedii siiyo bal cabir mara badan markay dareemadu aad ka waawen yihiin ay isku dhafan yihiin ay isku culus yihiin ay too complicated ka yihiin ma karnaynan erey ku nidhaahno wayn oynaa dad badan baa markay cadhoodaan ooya laakiin ceebaal fara badan ka dareema oohintooda because jiraac bay u arkaan haddaad ooyeyso qof caafimaad qabaata because waxay ka dhigan tahay waxaad diiday in markii ereygu ku gabay ay indhahaagii ilmo ku cabireen marka mutanafis baad heshay waad nafisaysaa dad oydo okay markaan dad ismaagayno ama qofan doonaya nacagaa dhulka ugu adkeeyo haddaan ooyada qof jiracsan buu arkay muhiim ah wuxuu qofkani ku arkay laakiin ahamshi waxayna mutanafis aad hesho gudahaagii aanay ku guntamin dareemadii kolkaa oy ama wax qor ama dabadda u bax ama feer soo ciyaar ama kubad soo ciyaar ama jiimka tag you do you ahamshi wayna naftaadii cabirta dareenkaad ka cabirta una meel ku laaqmin oo meel isku dhigin oo meel ku guntamin talaabada ku xigta waxay naftaadii aad waqti siisid marka dareemada process garanayso in naftaadii waqti siisid islaamku wuxuu goliyay 3 maalmood hadduu qofku cadhaysan yahay inuu naftiisa la fadhiisto inuu yani xaq wuxuu u leeyahay inuu xaataa waxa uu ka cadhooday inuu ka aamuso cidina sanka iyo dhigtaa ka gelin caadi iska dhig oqdadley baa tahay hadal waxba maxaa wax ka weyn baa dadka ku dhaca aan la wereerin oo la dabaqin inuu qofka naftiisa la fadhiisto uu process garayo dareenkiisii naftaada markaad process garaysid dareemadaadii waxay noqonayaan kuwa aan kugu abuurin waxaa la yidhaaho tabasho intaa qofku mashquulsan yahay familkiisa ku mashquulsanaado shaqadiisa ku mashquulsanaado shooyadiisa ku mashquulsanaado hawlihiisa ku mashquulsanaado markaad cadhootid baad darayd hab ina mari maqaxdan tagina 2 kobo shaahan ku dhufanayna dhaga jabiya dhag xaaladu hagaagisa waxba inaga gelin ina mari sinemadan tagina ina mari wax weeyaan waynu soo casheynayna ina mari ama waba seexanaya just to yani avoid garaysid emotionskaagii TV aad daawatid film Turkiya aad iska daaratid game aad iska ciyaartid waxaasoo dhan waxaad ku hordaysaa naftaada inaad la fadhiisatid daqiiqad lama fadhigi karaysid naftaadi waa very destructive make time for yourself naftaadi la fadhiso dareemadaadii dareen express garee wax isweydii say wuxuu jiraandhe garawshiyo SCC talaabada ku xigta waxayaan in physically ama jir ahaan aad jirkaagii u dhaqaajisid inaad dabadda u baxdid hawa nadiifa soo qaadatid inaad kubad soo ciyaartid inaad jimka tagtid oo feer soo samaysid inaad dabaalatid in aad iskala bixisid inaad neefsatid waxaasoo dhan waxay kaa caawinayaan inaanay dareemadii kugu guntamin oo hadhowto inaad garbaha qaadi kari waayno madaxu ku qarxi gaadhin oo cunuhu una
ku qalalino waxa weeyaan aadan si kala noqonin. markaad cadhaysan tahay ama aad wax diidan tahay inta badan naftu waxay jeceshahay inay isdambe basto istiraaho nin weyn baad tahay waxaa bismillah waxba laguma soo qaadee hebelba miyaad arag heblaayba miyaad arag yagaaba kaasii darano cid kale ay ku barbar dhigto cid kale ay ku sudho markaa naftaada cidna ha sudhin amar uma baahna marka aad deerimadaada aad process garaynaysid ee hays amrin markaad cadhaysantahay waad cadhaysan tahay markaad wax diidantahay waxbaad diidan tahay markaad murugsan tahay waad murugsan tahay markaad grief garaynaysa aad wax weyday waxa aad weyday meeshuu ka baxay ayaa ku maqan marka aad allahumma salli calaa maxamed hungow iyo disappointment dareemaysid hungow baad dareemaysaa waxba yee naftaada kugu odhan nin weyn baad tahay hor caadi iska dhowr ramadaa iska ridin war is adkay gabadh baad tahay caloosha xidho kan keerkeer caafimaad kuma jiro naftaada waxaa siisaa ogolaansho iyo permission inay ogolaato dareemadeeda oo aad isku raxmad lahaatid oo aanad xukun iyo label isa saarin hebelba waa saase heblaayaba waxaa kaba hebel ma tihid heblaayana ma tihid adigu adigaa tahay hebel wuxuu diido waxaa laga yaabaa inaad adigu diidin waxaad adigu diidda hebel ma diido hebel si wuxuu process gareeyo isagay u taallaa ama iyaday u taallaa sida adigu iyo different hebel ma tihid heblaayana ma tihid dadka kala hayso surin hebel ba culays kala saara hebel culayskiisa iyo waxa weeyaan hayaankiisa nololeed iyo testiska iyo waxa weeyaan imtixaanaadka ilaahay la kulansiinaya way ka duwan yihiin kuwaaga way ka duwan yihiin dabeecadiisa isu ula dhaqmayay awoodaha ilaahay siiyey iyo siduu dareenkiisa u manage karanayay waxaasoo dhan hebel bay u taala adiga kuma taalo adiga shakhsiyadaadu waa different adigu saad u jawaabaysaa waa different adigu saad wuxuu dareemaysaa waa different way ka duwan tahay hebel marka hebel hayso surin 100 qof baa ku dhaama oo waxa weeyaan hebel baad dhaantayo hebelaayaad dhaantayo iyagaba miyaanad arkin balaaya kuma haysee waxaasoo dhan waxaa lagu dismiss garay qofku inuu dareenkiisa la tacaamuli weeyaan oo deetan uu hadhow tolo u soo baxo qof buuxa oo meel kasta waxa weeyaan ku dareen mataga marka dareenkaaga sii xaqiisa sii qul kullu yacmalu calaa shaakilati hebel dabeecadiisa qofnimadiisa hayaankiisa nololeed waxyaabahu la kaca kufayo isaga waxa weeyaan ay khaas u tahay adigna taada khaas ku marka taadan ku focus garee for now cid kalena yaanay dismiss garaynin oo dareenkaaga dilin oo macnaha ka qaadin ha u ogolaan inay cid kale dismiss garayso oo cadhadaada waxba barkuma taalay ka soo qaado ama waxaad diidaysa lagu yidhaha doon ama waxaad doonaysa lagu yidhaha diid naftaada dareenkaaga sharaftiisa saasaad ku ilaalin karaysa waxaas oo dhan maxaan u soo qaadanaya insaanku markuu dareenkiisa connected ku yahay way fududahay inuu ducadiisa dareemo tusaale nabi zakariyaan soo qaadanayno zakariya calayhi salaam markuu maryam u soo galay iyada oo dalagii ama cuntadii ama khudrawaadkii soo bixi jiray xilliga xagaaga ay haysato xilligii jilaalka ay haysato ama kuwii jilaalka xilligii xagaaga haysato yacni xilligii samarka xilligii winterka ayaa waxay haysataa cunno aan soo bixin xilligaa ayay xilligan kala haysataa waa arsaaq yacni aan adduunyadan dul oolinba ilaahiyada si gaara u siiyey ama xilligii zamanka aan xilligaa oolino xilligeedii aan la gaadhin xilligii dalagaasuu soo goy jiray kolkaa nabi zakariya su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi yaa maryamu annaa laki haada maryamee halkay kaaga ahaatay nicamkan iyo barwaaqadana dhex fadhida faatiya min cindi illaah ilaahay bay ka ahaatay huwa min cindi illaah hiya min cindi illaah aywa ilaahay ayay ka ahaatay ina allaha yarzuqu man yashaau biqayri xisaab ilaahay cidduu doono isaga ku irsaaqa si aan xisaab lahayn dareen baa abuurmaysa markaad baahan tahay ee wax doonayso ee wixii naftaadu ay kuu sheegayso inaanad waxaa heli karaynin oo hanan karaynin oo aan carabkaagu gaari karayn oonay gacantaadu taaban karaynin oonaad awoodad ku haysato lahayn oo 150,000 oo cudurdaar ay naftaada iyo shaydaanku kuu samaynayaanay fogeynayaan way fudud tahay in dadka kale waxay haystaan aad isha ku mudid dabadeetana aad waxa weeyaan aad jealous ka noqotid baatid gaada tahay qof dareenkiisa connected ku ah kalsoonidu ilaahay ku qabaana ay ka xoog badan tahay waxaa la yidhaaho
beenaha ay naftiisa iyo shaydaanka u sheegayaan way fududahay in daqiiqada iyo sekinka aad process garaysid dareenkaas oo xataa dareenka negative-ka inaad positive u bedeshid. waxaan uga jeeda nebi zakariya kolkuu maryam saa ku arkay isagina u baahan yahay wuxuu doonaya inay naftiisa u sheegayso inay ka fog yihiin. muu odhan maryam iskumuu dhararin oo iyadii ismu barbar dhigin. muu odhan iyadoo la siiyaana maxaa laysiin waayey, iyadoo maxalkay ka keentay. muu odhan iyadii su-aal lamuu dul istaagine. ilahay wuxuu inoo sheegaya hunaalika dacaa zakariya rab, halkaasuu nebi zakariya ilaahaysa ka bari. laxadadii ay ahayd inay qofka ku abuuranto inuu makhluuq noqdo ama uu jealous noqdo walciyaadu billaah ayuu wuxuu u bedelay daqiiqad duco buu u bedelay qofkii. waa qof naftiisa connected ku ah, waa qof garanaya suu dareenkiisa u maareeyo, waa qof garanaya sida laxdada iyo daqiiqada iyo sekinka dareenka looga faa'iidaysto. hunaalika dacaa zakariya rabba, halkaasuu nebi zakariya ilaahaysa ku bari. markaan leeyahay dareen ducadaada haddaynu dul istaagno nebi zakariya meelo kale qur'aanka markuu dareen sheeganayo ilahay wuxuu inoo sheegayaa id naadaa rabbahu dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya. markuu rabbigiisa baryay odaygii weynaa ee dhabarku daalay ee soo foorarsaday ee aan waxa weeyaan dareen iyo muruq iyo xoog iyo himad nin dhalinyaro ahi ayna ku jirin, laakiin doonitaanku doonayo in cid ka hadho magaciisa iyo risaaladiisa kala hadhaa ay timaado ay ka weyneyd asbaabta adduunka muuqato oo dhani soo tukubo ha imaado mixraabkiisa iyo meeshuu ku tukan jira. ilaahay buu u yeedhay marka, ilaahay buu gacmaha u taagay id naadaa rabbahu nidaa'an khafiya. nidaa waa erayga markuu dheer yahay, yeedhmadu markay dheertay heblaayoy marka tar hebelow aad qof uga yeedhiso attentionkiisaa soo jeedinayso. haddana khafiya buu ilaahay leeyahay. khafigina markaad yani xashaashaqayso aad leedahay. labadaas halkay iska galaan? labadaas waxay iska galaan marka dareenkii doonitaankaagu meel fog ka imanayo, baahidaadu markay meel fog ka imanayso. maca haada ixtiraaman lirabbik, ixtiraamad rabbigaaga ixtiraamaysid haddana hadalkii hoos u dhigayso, ama inaad shame iyo ceebaal iyo suurtagalnimo yani asbaabta adduunya aad ka dareemayso oo oday weyn oo 80 jira ama 90 jira oo dhabarkiiba soo qaloocmay oo lafihiisii ay qaadi waayeen oo waxa weeyaan tiisii u taag darani. su-aasha naftiisa isweydiinaysa waxa weeyaan yani sidaad suurtagal u tahay inaad ilmo yar dhasho, siday suurtagal sidaad u korinaysa kaad geynaysa yani how. nidaa'an khafiya yeedhmo meel fog ka imanaysa. markaa codadkaas iyo kala qaybsanaantaas iyo loolankaa gudeed ee asbaabtaa dabadeed ee cadamkaa asbaabtii adduunyadan dabadoo dhan marka dhammaatay gudihiisii bay rajadii ka dhammaan waaye. loolankaasa markaa codkaasi ka soo baxaya nidaa'an khafiya. markaasuu wuxuu leeyahay eg ducadaada dareematan leeyahay qaala rabbi innii wahana alcadmu minii. ilaahayo rabbigayo lafahii baa iga jilcay, muruqii baa iga jilcay, nin dhalinyaraa ma ihi, himadii iyo doonitaankii iyo dareenkii igu jira iguma jiro. wahana alcadmu minii lafahaygii baa iqaadila. kaanama intay lafihii oo dhan isu imaadeen. lafu markay badan yihiin ciidaan baa la yidhaha, cadmuna waa mid keliya. kaanama inay lafahaygii oo dhan intay midoobeen ay ku heshiyeen odaygan maba sidii karayno maqaarkiisii aynu waxa weeyaan yaynaan qaadin. wahana alcadmu minii, ilaah lafii baa iga jilcay, yani awoodi iguma jirto, taagi iguma jirto. washtacala alra'su shayba, timihiina madaxiina wiiga basay. yani qofkay arkaa hadduu ogaan lahaa ducada aan ku ducaysanayo waabu yaabi lahaa oo adeer xilligaasaabad joogtaa maxaa ayuu odhanaya. washtacala alra'su shayba, ilaahayow madaxaygana wuu basay sida markay dhuxushu cadaato. ishtacala alra'su shayba, yani wuxuu la basay ciruu la basay, waan gaboobay. saasoy tahayna walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. saasoy tahayna ilaahayow
rabbigayo marnaba kuman hoogin duca aan ku weydiistay waxaan ku weydiistay kuman hoogin yacni rajada aan kugu qabo kalsoonida aan kugu qabo binaadan aaminsannahay in arrinkaasi kun fayakun kugu yahay baa ka weyn lafahan i diiday timahan iga basay madaxan iska waxweeyaan cadaaday markaasuu sii sababaynaya haddana sababtu وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا إلهي dadkii yacni mawaaligayga ciddii iga dhaxli lahayd risaaladan iyo ummaddii aan ka tegayay ayaan gadaashayda u baqayaa cidii dhaxashaan doonaya cid magacayga qaataan doonaya cid risaaladayda sidaan doonaya cid nasalkayga rabbiyow baaqi ka dhigta ayaan doonayaa haddana naftiisiiba u sheegaysa xagga islaantiina bal anigu xaalkayga waa saase wa kaanat imraatii caaqiran ilaahu gabadhaydiina way dhalmadaysay caqriga waxaa la yidhaha shaygu markuu dabar go'o caqriga waxaa lagu yidhaahayo kale luqadda af carabiga marka nabar meel ku dhaco oo troomadaasi qofka ay la socoto kolkaa waxay sheegaan culimmadu in ay dhici karto gabadhaa in uu soo gaadhay dhaawac markii ay yarayd sababsaday inay yacni ay saamayso waxaa la yidhaaho fertilitygeedii iyo awooddii ay ku dhali lahayd kaanat imraatii caaqiran gabadhaydiina dee imika da'deeda iyo xaaladdeeda caafimaad iyo umuraheedu ma sahlayaan inay wax dhasho saasoy tahay fahabli min ladunka weliya xalkaaga ii hibee isii rabbiyo cidad adigu waxa weeyaan aad raalli ka tahay oo anigana i dhaxasha ilmaysii yarithunii wayarithu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya anigana ha i dhaxlo reer aali yacquubna ha dhaxlo oo dee risaaladan iyo nebinimadan ha iga dhaxlo wajcalhu rabbi radiya rabbi waxaad ka dhigtaa mid adigana ku raaligeliya anigana i raaligeliya isaguna ku raaliha wax kastoo aad waxweyaan aad u qadarto markaasuu ilahi wuxuu leeyay yaa zakariya inaa nubashiruka biqulaamin ismuhu yaxya zakariya waxaanu kuugu bishaaraynaynaa ilmo magaciisii xataa waxa uu yare waalidku sameeya waa inuu magaca ilmihii soo bixiyo xataa anaga kaa kafaalo qaadnayo yaxyaanu bixin waxaan uga jeedaa waxa weeyaan ducadaada markaad dareemaysid way ka macno iyo maqaam iyo dhadhan badan tahay markaad erayo aad qaybta iska leedahay duca kastoo qur-aanka ku jirtaa way barako badan tahay duca kastoo nabigeena calayhi afdal salaatu waatamu tasliim ka sugnaatay oo shaamil oo erayadeedu kooban yihiin oo micnaheedu ballaadhan yahay way barako iyo badnaashiyo badan tahay laakiin waa inaad dareemaysa inaad iska qaybta maaha afkaaga markaad ilaahay la hadlaysid ilaahayow markaad la hadlaysid waa inaad ducadaada aad dareentaa ilaahu kabtibaa iga gooday lacagna ma haysto telefoonkayga $5 baa ku jirta $5 aan haystaana kabii jari mayso adeegiiban ku soo iibsanayaa ilaahu cagtiibaa daashay sidan xagga ugu marayay ilaahu cagiibaa xanuunaya cirbiibaa xanuunaya ilaahu magaalada kaba fiican lagama helay meel aan kaba fiican ka helo ii sahal oo sida ugu fudud ii soo gaarsii oo gaariga ugu dhaqsaha badan ilaahu ii soo saar yaa musabib alasbaab wa absad shay waa waxa ugu yar aham shay wayna ducadaadii dareemaysaa waa inaad dareemaysaa way macno kuu leedahay way maqaam kuu leedahay oo dareenkaagii kabtaasi meeshay ku gaarsiinayso inaad ka hadli karaysaa ilaahu kabtaas inaad taraawiixda u xidhaan doonayaa inaad taajudka u xidhaan doonayaa inaad masaajidaada ku qabtaan doonayaa inaan ku xaragoodo nicamkaagu aad dushayda ka muuqdaan baan doonayaa waa waxa ugu yar marka ducaysanayso ha iska qaybin ducooyinka waa inay baahi dhab ah oo adiga ku haysato dareensan tahay ood og tahay waxaa markaad hesho meeshay kuu buuxinayaan siday kuu kaabayaan siday kuu saacidayaan waa in aad ku ducaysataa markaasay macaan leedahay markaasay maqaam leedahay markaasay ilmada soo dhawaysaa markaasay laabtaada fududaysaa markaasaa marka la ajiibo yaqiintaada iyo iimaankaad ilaahay ku qabtay kalsoonidaad ku qabto ay kor u qaada marka ducooyinkeenna aan dareeno ducada nebi zakariya ku ducaystay waxyaabaha cajiib kale leedahay waxaa ka mid ah walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya rabbiyow
duca aan ku baryay iyo tan aan imika ku baryayo iyo kuwa hore toona kumaan hungoobin. ilaahu tan ha igu hungayn ayay ka dhiganta. marka dhambaalkeennan waxaynu u dooranaynaa walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya. ilaahayow ducooyinka kuu ducaystay iyo baryadaada marnaba kumaan hungoobin, tanna waan hubaayo igu hungayn maysid. salaam.